maanta waxaan isugu nimid inaan go'aan kama dambays ah ka gaarno kana tashanno shaqadii noo soo socotay madaxweyne Shariif uu ku cilaamiyay annagoo hareerihiisa taagan banaanbixi waa sidii loo cilaamiyay waa noo maalinta Axadda waa noo 10ka bisha qof kasta oo Soomaaliyeed oo ay maqlaaya oo xuquuqdiisu maqan tahay mid xuquuqdiisu aanay maqnayn laakiin u jeeda in loo imaanayo si xuquuqdiisa loo doodsiyo mar dhow kulligeen waxaan rabnaa inaan isku soo baxno laga bilaabo maalinta Axadda 10ka bisha haddii Ilaahay yiraahdo banaanbuxu waa soconayaa inta taliska dhigmiiradka ah oo xalaaleystay dadka xoolahooda intay dhulboobka wadaan banaanbuxu waa soconayaa inta dhalinyarada Soomaaliyeed la xirxirayo banaanbuxu waa soconayaa inta laga heshiinayo dowladnimada sidii loola kala wareegi lahaa doorashana loo geli lahaa banaanbuxu waa soconayaa inta cadaaladda ay dib u soo noqonayso banaanbuxu waa soconayaa inta qof Soomaaliyeed lagu xadgudbaayo shalay dowladda hadda jirta oo madaxweyne Xasan Sheekh hogaamiyo waxay noo sheegtay inay hakisay dhulboobkii xalay cagafti baa lagu seexday saakay cagafti baa lagu waabariistay beenta marin habaabinta farsamaynta waa ka soo daalnay shacabka Soomaaliyeedna waa ka soo daalay maanta dawladdu waxay noo sheegtay inay 10,000 oo qoys guriyo u dhisayso 300,000 ka badan ayay barakacisay hadday dad wax u dhisayso maxay 300,000 u barakacinaysaa waxaas waa marin habaabin xuquuqduna ma gasho ku meel gaarnimo xuquuqdu waa joogto qof walba oo muwaadin wuxuu xaq u leeyahay in xuquuqdiisa sharcigu u ilaaliyo inta sharciga looga dhaqmaayo nidaamyo kala dambeyn la helayo banaanbuxu waa soconayaa waxaan rabaa anigoo ku hadlaaya madaxda halkan fadhida iyo inta naga baqanba in banaanbixii la ilaamiyay aan rabno xaafad walba goob walba meel walba oo magaalada Muqdisho kamida iyo cid walba awooda dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dibadiisa si looga dhiidhiyo xaqdarrada dalka ka socota in la isku soo baxo isu soo baxaasu waxa uu sheegayaa kana shaqeynayaa inaa hooyada badbaadiso inaa aabaha badbaadiso inaa walaalaha badbaadiso waxa uu soo baxaasu tarayaa dawladnimada 30 sano la soo kabkabayay inaanay naga dubin waxa uu soo baxaasu tarayaa in qof kasto madax noqdo aanu ku takrifalin xuquuqda dalka waxa soo baxaasi tarayaa in dib loogu soo noqdo dhaqan dawladnimo oo sax ah lagana gudbo dhaqanka qowleysnimada ah oo hadda la caadaystay balanteena waa maalinta Axadda iyo qof walba oo muwaadin oo magaalada Muqdisho jooga inuu dareenkiisa muujiyo banaanka u soo baxo dawladdu dadka waa u cagajuglaysaa qofkii xuquuqdiisa iyo dareenkiisa cabira waa xirayna ayay yiraahdaan 4 milyan oo qof oo magaalada Muqdisho jooga inay xiri karaan inaan aragna ayaan rabnaa aan tusinay inaan xiri karin ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan laba arrin ku soo kufiyo marka hore dhulka la idinka qaxiyay
laydin ka barakiciyey kulligiis waxaa lagu bixiyey noolo osto madaxweyne soo sidaa ma joojin rasmiya iyo wax dhab ah waxaan u naqaanaa digreeta madaxweyne oo bannaanka lala soo istaago inta ka horeysa farsamayn yeeli mayno waa soo aragnay taa ama sida cabdiraxmaan cabshakuur u dhigo inna la taatikeeyo yeeli mayno waxaan rabaa inaan awooddiinna idiin sheego maalinta halkan aad noogu timaadeen oo aan niri iska diiwaan geliya hiil shacab ku dhowaad 30,000 ayaa hadda isdiiwaan gelisay qof kasta oo gurigiisa la qaatay oo la barakiciyey ama dubis lagu qoray waxaan rabnaa inaad iska diiwaan gelisid hiil shacab wuxuu naga anfacayaa inaan diiwaankaada hayno wuxuu naga anfacayaa inaan xuquuqdaada kula raadino wuxuu naga anfacayaa berrito meel aan ku laabanno oo loo asteeyo cabashada aad keentay inay jirto isdiiwaan geliya u sheega saaxiibadiin u sheega walaalihiin u sheega qaraabadiin u sheega deriskiin u sheega haddii aadan idinku soo bixina cadaalad darradu idinkay idiin imaanaysaa waa noo axadda waa noo 10ka bisha mudaharaadkuna maalin keliya ma aha waa soconayaa inta dalkan lagu soo celinayo nidaam dowladnimo dhaba waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.